kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Suldaan Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan Suldaan Tube, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. war degdeg ah oo hadda na soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in Xasan Mustafa Isaaq oo loo yaqaano Xasan Toob in xabsiga la dhigay. hay-adda sirdoonka NISA ayaa Xasan Toob xabsiga u taxaaday, halkaasna su'aalo ku weydiinayso. sababta Xasan Toob loo xiray ayaan markaan xiriiro badan aan sameynay waxaan ogaanay in Xasan Toob sababta loo xiray ay tahay shakhsi asaga la shaqeyn jiray oo hay-adda sirdoonka NISA ay ku haysato in uu yahay Al-Shabaab. shakhsigaas oo ahaa Ziido Lugeel oo horay ay NISA ay gacanta ugu dhigtay, haddana ku jiro gacanta NISA. Xasan Toob ayaa asna soo galay raad ah in uu wax la ogaa ninkan la shaqeyn jiray ee Ziido Lugeel, haddana xarunta baarida ee NISA ayuu Xasan Toob ku jiraa. halkaas ayaana su'aalo ay ku weydiinayaan ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed. wixii warara ee ku soo kordha kiiska Xasan Toob halkan ayaad kala socon doontaan daawade. waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan Suldaan Tube, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa janalka in aad subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.